بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال ميل بعد كسوونتين magacaygu waa Jamaal Ibrahim Xuseen halka naga socotaan waa idaacada codka bulshada wajeer comment radio waxaan halkani aan maanta aan ku soo booqanay hooyo Sahra Ahmed oo ah hooyo haysato 5 caruur ah hooyadani waxay ku sugan tahay xaafad kamid ah xaafadaha ismaamulka wajeer waxaan halkani ku haysato dhibaato dhanka nolosha hooyadani ayaa waxay ku nooshahay xaafadan aad u jeedaan bloodkan yaraanta badan aad u jeedaan iska badaa meel ay seexdaan caruurteeda ma haystaan wax ay cunaan waxa laga yaabaa maalinkii in ay hal mar wax u hesho halka adiga iyo aniga aan maalinkii aan 3 jeer aan cunno nolosha cuntada haysan meel oo joogay ma ay saxaroodaan oo xal qabin oo gurnaha qabin oo ilmi dugsiga shamlo ka kala leeyahay oo leega soo jijiyay oo cid ii joogan oo ilmi hata uniform hata bugti hata nula ahay oo dugsiga laga soo fiijiyay oo uniform la dhahay uniformkan aan uma awoodo waqtiga hadan dib bulshada waqtiga kala dib uma shiri kara ilmaha zayd ay iga gaajoon yihiin muslimiinta ilaahay waxaan ka baryaa inay caawiyaan saad maqlaysaan muslimiinta qaarka jecel meel walba aad ku sugan tihiin hooyadani waa hooyo haysato 5 caruur ah kuna sugan xaafad kamid ah xaafadaha ismaamulka wajeer hooyadani waa sida ay sheegtay hal maalin hadii ay wax karsato maalinta kale waxa laga yaabaa inay wax karsanin hal mar hadii ay wax karsato marka labaad waxa laga yaabaa inay waxba karsanin caruurteedana aysan haysanin hoy ay ku hoydaan ama ay dhaxanta kaga gabadaan halka adiga aan guriyo waaweyn aan saxano caafimaad qeyr qab aan qabno alxamdulillah ilaahay loo mahad celina laakiin qofka walaalka oo deriskaaga ah ama aad muslimku ah waa inaad ka war haysaan noloshiisa iyo sida uu ku waabiristay maalin walba hooyadani waa hooyo ilmo yar oo isku nolol waliba haysato waxay muslimiinta qeyrka jecel ay ka codsanaysaa in ay soo caawiyaan halkaad kala soo xiriir kartaan hooyadani waa lambarkeeda oo in kaga muuqata shaashada muuqaalkani fadlan soo caawi walaasha dhibaataysan